muxuu alle cadaabkiina ku falayaa haddii aad u mahadnaqdaan aad rumaysaan. maalin maalmaha ka mid ah oo maalin dagaal ahayd ayaa markii dagaalku dhammaaday uu nabigu calayhi salaatu wasalaam arkay gabadh ilmaheedii yaraa weyday oo baadhaysa. baadhitaan kadib way heshay, kadibna inta ay ku soo booday ayay laabta gelisay. nebiga oo intaaba xaalkeeda la socday ayaa saxaabadii ku yidhi, miyaad u malaynaysaan in gabadhaasi ay ilmaheeda yar ee ay sidaas u jeceshahay ay dab ku ridayso? saxaabadii rasuulku waxay dhaheen, rasuulkii allow may. markaas ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii ku yidhi, waan halka in doonani gabadha ilmaheeda sidan ugu faraxsan ayuu alle kaga farxad badan yahay addoonkiisa u soo laabta ee u toobad keena. saaxiib, rabbi waxa uu leeyahay, muxuu alle cadaabkiina ku falayaa haddii aad u mahadnaqdaan oo aad rumaysaan. rabbigeen waa alle wax allaale wax uu cadaabkeena ku falaya aanay jirin, ee cadaalad ahaan uun kii xumaadana uu cadaab u gelinayo, kii wanaagsanaadana uu janno u gelinayo. sidoo kale xadiisul qudsi buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku leeyahay, addoommadeeda ka mid ah baa dembaabay. marka waa dhaqan ay dad badan leeyihiin, qaar horena lahaayeen, qaar ilaa hadda joogaana ay leeyihiin. dhaqanka ilaahay sheegaya addoommadeeda ka mid ah baa dembaabay. kadibna waxa uu ogaaday oo xasuustay inuu leeyahay rabbi hadduu doonana dembiga uu qabanaya, hadduu doonana ka dhaafaya. kadibna ilaahay ayuu gacmaha hoos horsaday oo hoos dhigtay, isagoo dembigiisa u sheeganaya, toobad keenaya, u soo laabanaya, una sheeganaya rabbigii inuu dembiga u dhaafo. in yar kadib ayuu dembigii ku laabta, isagoo ka go'onayd inaanu dembiga ku noqonin, laakiin naftii iyo shaydaankii ayaa ka qaalib noqdo, ka adkaaday. haddana mar labaad ayuu ilaahay subxaana wa tacaala gacmaha hoos horsaday. weli ilaahay baa xadiiskii qudsigii noo wada. ilaahay markuu u sheegtay inuu dembiga u dhaafo ayuu haddana dembigii ku laabtay mar saddexaad buu haddana ilaahay toobad weydiistay. mar walba isaga way ka go'antay inaanu dembiga dib ugu dambaysa ugu laaban, laakiin naftan, shahawaadkan iyo shaydaankan ayaa ka awood badinaya. ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala, ogaada, alaa fashhadu, waxaad ogaataan annii qad gafartu licabdii, addoonkaygaa dembigiisa inaan dhaafay markhaati ka ahaada. wax alliyo wuxuu doonaha sameeya. marka waa la saa leeyahay kama aha inuu dembiga u fasaxayo, ee waxay ka tahay inuu doonayo ilaahay inuu inooga siiyo, inoo sheego. marba haddii aad cabsanayso marka dembi gasho, aad yaqiiqasoonayso, aad xishoonayso, ka cabsanayso, ka baqayso, ka xishoonayso, yacyacayso, marba haddii dareenka noocaasa kugu dhacayo, rajaad leedahay waad wanaagsan tahay weeyaan. weli waad wanaagsan tahay mar haddaanad gaadhin adigoo dembaabay inaad dembiga ku faraxsantahay, adigoo dembaabay inuu iska shay caadiya kula yahayba, haddaanad heerkaa gaadhsiisnayn waad wanaagsanto, weli rajaad leedahay ayuu doonaya ilaahay inuu noo sheego. wanaagsane waa ilaahay. salaam.